السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحين سيودنا عشرة دي كوساب سنة ستوب ليميت أما ستوب لوس وحلو يقانو عشر كان براكتيك وحن كو قادرنا كمبيوترك sababtoo ah labadii cashar hore waxaanu ku qaadanay mobilka marka walaalaha qaarkood waxay yiraahdeen mobilku waa yaryahay in laga sawiro laakiin screenka computerka inuu isticmaalna maanta si waadix ah marka casharkaasi si fiican ugu soo celceshada oo ka faa'iideysta inteenan videoga bilaabin waxaanu soo dhaweynaynaa walaalkeen Maxamed Jaamac Sacuudi oo furay channel cusub oo YouTube ah channelka magaciisuna wax weeye wax walba crypto sida halka aragtaan ee idinka muuqata wax badan oo ka baran doontaan channelka waana channel ku saabsan barashada cryptocurrency-ga iyo akhbaaraha iyo newska cryptocurrency-ga iyo suuqyada kala duwan iyo taxliilinta cryptada ama waxa loo yaqaano technical analysis marka soo dhaweeyaan leeyahay walaalkiin channelkiisa ku soo biira subscribe saara like-na u saara kana faa'iideysta waxyaalo badan baad ka faa'iideysan doontaan insha Allah videogan imika aan sameeyay hoostiisa ayaan idin soo dhigay link ka mid ah linkiyada Maxamed videoyadiisa marka insha Allah ku dhufta linkiga oo gala channelka Maxamed oo ka faa'iideysta insha Allah haddaba casharkeena maanta ku saabsan stop loss-ka aynu bilowno براكتيك waxaan ku qaadanaa coin-ka la dhaho HBAR ama Hydra Hash Graph oo aynu coin-ka maandhowto ka sameynay cashar yar oo fudud cryptadu waxaa laga faa'iideystaa marka ay price ku yar yahay baad iibsanaysaa markay kor u kacdana waad iska iibinaysaa daawaynu isla wada fahanay dhammaanteen haddaad halka eegtid dib u yara noqo waxay ahayd bishii 2020 sanadkii hore bishii 20 price-ku meeshuu marayay daawo wuxuu marayay 0. kaba soo qaad price-ka lowgiisa wuxuu gaadhay 0.029 all time high-giina wakaa markay ahayd bishii 13 bishii 9 sanadkan aynu ku jirno 2021 price wuxuu gaadhay 0.57 marka isku xisaabi qofka ka qaata 0.02 oo iskaga iibiya price markuu meelaha sare mariyay sharad ma inay noqoto 0.57 wax yar ama yar ka hooseysa uu iska iibin lahaa yani wax badan buu ka heli lahaa marka faa'iidada crypto waa aynka buy low sell high meel hoose ka iibso meel sarena iskaga iibi hadda waa aragtaa nimanka maanta wuxuu marayaa 0.32 maandhowtana 0.4 uu mariyay marka taa lafteedu faa'iido weeye meel hoose ka qaado meel sare iskaga iibi coin-ka koodkiisu waa weeye HBAR ciddadeedu waa kan price-ka halkaad ku aragtid ee casaanka ah waxa weeye waa sellers waa dadka iska iibinaya ama iska xaraashay coin-ka green-ka waxa weeye ama cagaarka waxa weeye dadka iibsanaya coin-ka markaad screen-ka eegtid qaybtan waa qaybtii chart-ka ku tusaysaa ama hadday noqoto 15 minute ama saacad ama 4 saacadood ama maalin wuxuu ku sharxayaa chart-ka nidaamkiisa ama week halkaasaad ka bedeli kartaa time-ka aad doonaysid waad dooran kartaa marka aad rabtid inaad iibsatid ama iska iibsidna waxaad tegaysaa dhinacan markaad computerka la tacaamulaysid waa waadax weeye si waadax aad arkaysaa laakiin dadka badankood mobilka isticmaalaan marka ay la tacaamulayaan ama iibsanayaan cryptocurrency-ga ama iska iibinayaan sababtoo ah mobilku waa fudud yahay gacantana waad ku haysataa markasna waad ka bixi kartaa waad geli kartaa aad bay inagu fududtahay labada badhalka aad ku aragtid midna waxaa la dhahaa buy midna waxa ku qoran buy iibso midna waxa ku qoran sell iska iibi labadii cashar hore stop limit-ka sell aad baynu uga hadalnay waynu ku celinaynaa laakiin bal buy-ga aynu ku bilowno markaad buy tirahdid matalan halkan waxaanu ku haysanaa $20 markaad leedahay coin-ka iibso waxaad haysataa option of kala duwan haddaad halkaa taabatid wuxuu ku oranayaa 25% iibso halkana wuxuu ku oranayaa 50% iibso halkana 75% iibso halkana 100% iibso ama waxaad samayn kartaa matalan haddaad doonaysid inaad iska iibsid waxoo dhan badhankaa soo jiid dhammaadka gee dhamaatay halkana u fiirso wuxuu ku oranayaa buy waxa kugu qoranaysa coin-ka aad iibsanaysid ayaa kugu qoranaya buy markaad iska iibinaysidna waxaad ka arkaysaa sell haddaba buy aynu bilowno laakiin inaga oo isticmaalana stop limit haddaba aynu bilowno buy inaga oo isticmaalayna stop limit casharka waxaan ku dadaalayaa inaan inoogu sharaxo si fudud oo easy ah oo qof kasta uu ka faa'iideysan karo labadii cashar hore aynu ka sameynay mobilka xoogaa waxaa ku jiray dedejis xoogaa waynu yar dedejinay si uu waqtigu inagu badnaan cutting iyo editing badan oo ku sameeyey marka videogan waxaan ku dadaalayaa inaan si fudud aan ugu dubo oo ay ku jirin dedejis fara badan ay ku jirin oo aan ku celcelino buy baynu ka bilownay $20 baad haysataa halka waxa kugu jira $20
waxaynu geynay 100%. haddaan $20 ku iibsado hbar wuxuu isiinayaa 63 aragtaan buyga haddaan ku dhufto optionka. marka ay tahay limit haddaan badhanka soo jiido ama ka dhigo 100% wuxuu siinayaa 63 waan ku dhufan karaa buy. laakiin waxaan doonayaa مثلا $20 inaan ku iibsado wax fara badan. طيب برايسku hadda wuxuu maraya 0.293 soo maaha. waxaan rabaa inaan ka seexdo matalan oo iraahdo beri subaxii orderkaas meel fiican baan geysanayaa waan iibsanayaa isaga oo qiimo fiican ah. haddaad rabtid adoo aan stop limit gelin waad ka iibsan kartaa limit. waxaad gelin kartaa matalan gelaysaa matalan price yar igu iibi hadduu gaadho matalan hadda wuxuu marayaa 0.325 soo maaha. haddaad tiraad iibi isagoo 0.2 way yara adag tahay inuu dib usoo noqdo xoogaa. laakiin waxaad oranaysaa matalan waxaad iibisa isagoo maraya 0.29 ka dhigba 0.29 waad oranaysaa iibi subaxii waxaan rabaa inaan soo kaco isagoo orderkayga meel fiican maraya. waad jiidaysaa waxaad oranaysaa 100%. halka waxaa ku qoraa 63 soo maaha. hadda waxay noqonaysaa 70 xabadood sababtoo ah pricekii waynu bedelay. markaa orderkaad ku dhufanaysaa waxaad oranaysaa buy hbar khalaas calaamadaas kuu soo baxday wuu ku iibiyey coinkii. marka meesha orderkaa tegaysaa screenka kor u qaad orderkii wakaa orderkii wuu furan yahay. marka uu gaadho priceka 0.29 oo hoos soo daato wuxuu ku siinayaa 70 xabadood. laakiin imika hadaad eegtid priceka waa 0.32 waana adag tahay inuu kusoo noqdo 0.29 laakiin waa tajribo laakiin waa tijaaban ku sameynayna. orderkeeni waa kan halkaad delete waa taaban kaad cancel garayn kartaa ama iska masax. hadday ordero fara badan yihiin waa iska delete garayn kartaa clear all confirm خلاص waa masaxay orderkeygii waa masaxay lacagtii meesha kusoo noqonaysaa. okay taas waa marka ay tahay limit. stop limit hadday tahay waxaad samaynaysaa laba lambar baad gelinaysaa meesha. berigeenu ka hadlaynay sel waxaynu niri ss labadii cashar hore dib ugu noqda ss waad qoraysaa s marka aad sel samaynaysid lambarka hore waa inuu noqdaa lambar yar small lambar yar ku bilow ka kalena lambarkii ka weyn oo wax yar ay u dhexeeyaan baad gelinaysaa. marka buy marka ay tahay wuu isbedelayaa nidaamku waxay noqonaysaa b iyo b. buy macnaha ka hore ayaa weynaanaya ka labaadna wuu yaraanaya. priceku halkaasuu marayaa waad arkaa 0.325 markaad ka aragtaan. ka ugu horeeya waxaad gelinaysaa lambar weyn matalan lambar weyn ka hooseyna lambar ka yar. igaraa leeyahaada marka aan video dubi xoogaa codka waxaa laga yaabaa inuusan aad waadax u ahayn laakiin mikrofoonka iga yar xumaaday. mikrofoonka computerka ka duubayaa markaa yara dulqaata xoogaa codka duusan waadaxay. stop limitka buy marka ay tahay waxaynu niri waxaad gelinaysaa 0.29297 baad gelisay. lambarka waa sanu sheegnay bb buy hadday noqoto waa b big buy big. lambarka hore ayaa weynaanaya ka hoosena wuu ka yaraanaya. waxaad ku qoraysaa 0.295 marka labada kasara weyn 0.297 ka labaadna waa 0.295. markay sel tahayna waa maxay waad kala bedelaysaa kan ayaa xagga sel noqonaya sel small buy big. weligaa markaad buy samaynaysid waad ku soconaysaa lambarka sare ayaa weynaanaya lambarka hoosena wuu yaraanaya. marka waxaad oranaysaa 100% wuxuu ku siinayaa 70 isaga oo yar baan hoosena ka iibsanaynaa. markay sel tahayna ka bad lambar saraad ka dhigaysaa si uu kugu iibiyo marka uu kor kaco. okay 100% bismillah waa taabanay hbar buy maadir confirm. haddaba marka aad samaynaysid stop limitka oo aad lambaradaada gelisid wuxuu ku tusayaa sanduuq yar oo ku leeyahay stop limitka ugu hore. stop limitka waxaad gelisay 0.2970 weyn ka kalena waxaad gelisay 0.2950 hbar. waxaaba sii fiican inaad labada lambar aad isugu dhaweysid ka dhig matalan 0.297 iyo 0.296 anuu badanka waa isku dhaweeyaa ma kala fogeeyo labada lambar aad ma kala fogeeyo si uu markiiba kugu iibiyo.
marka waka labaatankii dollar wata confirm baad oranaysaa halka waad akhriyaysaa if the last price drops to or below 0.297 USDT an order to buy 70 H bar at a price of 0.295 USDT will be placed. معناها wuxuu kuugu iibinayaa ka fiican ee jaban ee raqiiska ah ayuu kuugu iibinayaa waana wax aad u fiican confirm baan sameeyey aan ku noqdo orderkii waa ii furmay waa kan haddaan isaga daayo dhowr casho wuu ii iibinayaa marka uu price-ka soo daadigo hadduu kor socdana waa mawduuc kale waa arrin kale weeye marka halkaas waxaad ka arkaysaa qaabka buy loo iibiyo oo loogu xiro stop limit oo markaad doonaysid inaad coinkii iibsatid isaga oo price-kiisu jabaya taana waa isla fahmay soo ma waa kasal garanaya delete ku dheh waa masaxda coino badan baa jira haddaad rabtid inaad iibsatid مثلا lacag fiican ka gashatid lacag fiican kugu jirto USDT ah marka aad doonaysid inaad iibsatid orderkaaga sii xidho sii habayso haddaad doonaysidna limit ku dhufo hal mar iskaga dhufo price caadi ah geli hal mar iska iibi مثلا waxaad tiraahdaa waxaan doonayaa haddii coinkaas uu soo daatoba oo uu noqdo 112 noqdo hal mar ii iibi limit soo jiid marka wuxuu ku siinayaa 186 buy baad galaysaa H bar orderka adeegaysaa orderka ku furmay خلاص ما بحرين هداد ربتid inaad iminka iibsi isagoo inta marayana waxa ku fiican adoo gala market gal markiiba full intaas ku siinaya hadda ku dhufto buy H bar isla markiiba uu iibinaya طبعا marketna wuxuu ku siinayaa price-ka ugu fiican market inuu badanka waxaan isticmaalaa market markiiba hadda limit gelisid wuu ku iibinayaa laakiin waxa laga yaabaa inuu dib ku yara dhigo lana orderada fara badan dadka wada aragtaa meesha iibsanaya kumayaan qof bay iibsanaya wada aragtaa daaw greenka daaw iyo asaanka kumayaal malaayiin bay iibsanaysaa marka haddaad limit qortid waxa laga yaabaa inuu dib ku yara dhigo oo uu maaragtay marba price-ka uu isbedelo akhirtaanka uu ku iibinayo laakiin marketka ka sii fiican boqolkiiba laakiin stop limit hadday noqoto orderkaad ku xidhatid uu kugu iibinaya selna waa inagii sheegnay markaad teen iska iibisid مثلا waxaanu haysanaa 962 coin oo H bar ah haddaan rabo inaan iska iibiyo waxaan geliyaa market directly waxaad soo jiidaysaa ama 100% taabo iga iibi markii uu ku iibinayaa macnaha order kalimis markii uu ku iibinayaa haddaad tiraahdo limit ugu iibina waqti yar baa dhici karta inuu ku siiyo dhowr second ama daqiiqado uu ku iibinayo markiiba si uu iska iibinayo markiiba laakiin haddaan rabo price-ka iminka wax ka qaalisan in iskaga iibiyo iminka aynu eegno مثلا haddaan rabo sell oo tago limitka wuxuu siinayaa inta haddaan iska iibiyo wuxuu siinayaa $316 buu siinayaa bal price-ka aan bedelo waxaan rabaa in iska iibiyo markuu kor u kaco maanta crash baa ka jira suuqa laakiin waxaan rabaa markuu noqdo 0.54 iga iibi wuxuu ku siinayaa $500 haddaan ku dhufto sell order inagoo limit ku jira sell order baan niri sell order buu ii furayaa waka wuxuu yiri wali iskama aadan iibin sababtoo ah price-kii aad doonaysay ma uusan gaarin laakiin marka uu price-kii aad doonaysay marka uu gaaro marka waa laga iibinayaa lacag fiican oo kelaysaa 519 taas marka ay tahay limit laakiin haddaynu ku noqono stop limit sell ah stop limit baan taabtay s bay noqonaysaa sell small waxaad gelinaysaa lambar waxaad oranaysaa waxaan doonayaa lambarka marka uu kor u kaco inaan iska iibiyo weligaana lambarka horaa yaraanaya waxaad oranaysaa 0.456 baa tiri ka labaadna waxaad gelinaysaa 0.457 baad gelisay haddaan ka eegno 100% H bar sell baa tiri kaa iibin maayo sababtoo ah weli order baa inoo furan maadaama uu order ku furan yahay waxba dhici maayaan waa inaad samaysaa delete kan iska masax delete ku samee hadda waa kan 960 waka wuxuu ku siinayaa 439 aad aragtaa laana price sare gelin kasarana waa inuu yaraadaa ka hoosana waa inuu weynaadaa markay tahay buy ka sare ayaa weynaanaya ka hoosana uu ka yaraanaya laakiin labada lambar isu dhaweey waanigi idin sheegay ka sare weynaysii ka sare lambar weyn ha noqdo ka hoosana lambar yar ha noqdo markay sell tahayna ka sare ayaa yaraanaya ka hoosana uu weynaanaya marka haddaan raahdo sell
sell binary 100% sell order confirmation ka soo baxay confirm ba taabanaysaa orderku ku furmayaa iska diisaysa marka lacag fiican haysatid oo aad doonaysid order yaroo fiican oo isleedahay meel fiican buu gaarayaa lambarada bedelaysaa sell bad ku dhufaysaa طبعا waa practical waxaan la dhaho stop limitku waa practical waa inaad every day samaysaa ku celcelisaa hal mar moogta waxay dhigtaa inaadan markiiba fahmin laakiin waxaa fiican mar kasta inaad ku celceshatid weliba mobilka ku si fiican tahay markaad mobil gacanta ku haysatid orderkaagu markiiba quickly taana ilaawin speedku waa muhiim markaas leedahay koynku uu yara cararaya xogaa speed si degdega u geli option oo orderkaaga si degdega u geli markiiba ku dhufo okay yara sug markaas sug ilaa inta uu ku iibinayo ama kaa iibinayo meeshii ugu fiicneed aad doonaysay in aad faa'iido ka heshid si degdega aan ku soo celiyo buy markay tahay kasaraa weyn ka hoosena wuu yaryahay sell markay tahay kasaraa yar ka hoosena waa weyn yahay laakiin laba lambar oo isu dhow oo aan kala fogeyn waad daa'iman dooranaysaa insha allah inaad taa fikrad ka qaateen labadii qaybood horena videoga hoostiisa idin soo dhigay ee ka faa'iidaysta ee ku celceshada laanno stop limitku waa wax muhiim jiddan wey waxa weeye oo kale markaad coin iibsatid oo uu kor kaco oo aad istiraadid coinkaa meel fiican buu ii gaadhay waxaan doonayaa inaan stop limit oo sell ah ku xidho waxaad dooranaysaa lambar faa'iido leh oo fiican ayaad gashanaysaa marka stop limitku mar kasta muhiim weeye si ay lacagtaadu kaaga lumin oo marka uu suuqu soo daato oo aad khasaare gelin sidaa awgeed baa waxaa loo bixiyey stop limit carabiga waxaa lagu yihahdaa waqfi alkhasaara ama stop loss ama stop limit waa isku mid weeye marka taana practical badan ku qaata sababtoo ah waa muhiim weeye marka aad la tacaamulaysid cryptocurrency-ga stop limitka markasta aad ku xidhatid weliba marka aad wax iibsanaysid oo wixii kor u kaco stop limit ku xidho si cryptoda haddii usoo daadato oo aadan khasaare u gaarin intaasaynu insha allah ku joojinaynaa barashada stop losska ama stop limitka waana sii wadaynaa insha allah videoyo kalena insha allah waa ka samayn doonaa innaga oo keenan kala duwan marba ku sameynaa stop loss insha allah marka idinkuna dhinaciina waxaa idinka rabaa markaad videoga saa u daawataanba inaad like saartaan like waa muhiim weeye sa markasta u sheegno commentiyada soo qorade commentiyada waxa u baahan tihiin video hoostiisana qoraalada ku soo qora haddii wax su'aalaha ay wax jiraan iyo casharada soo socda waxa aad jeceshiin laga sameeyo taana aynaga ilaawina haddaad nagu cusub tahayna soo dhawow subscribe ka saar channelka noqo channelkaagii waana muhiim weeye gambaleelka inaad riixdid si wax kasta oo cusub oo channelka Somali Cryptofolio aynu ku sameyno si uu markasta kugu soo baxo siina share garee ummadeenu ka faa'iideysto khayrkan meesha ka socda oo ha ku bakhaylin waxbarashada iyo cilmiga faafintiisa dhammaan walaalaha ku xiran channelka iyo qof kasta oo comment soo qoray waxaan leeyahay aad iyo aad ba mahadsantihiin waa idin salaamay khayarta dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh